soo dhawaada saaxiibayaal kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiin sidaa u dhan tihiin maanta waxaan idiin sharaxi doonaa qaabka OneXBet aa ugu faa'iidaysan lahaydeen ayaamahan sababtoo ah ciyaaraha ama kooxihii waaweynaa layskuma halay karo. ugu horeyn ma rabo inaan war kugu daaliyo, subscribe dhagsi sidoo kaleetana gambaleelka u furo si muuqaal walba aan soo geliyo aad ula socoto. sidoo kaleetana muuqaalka like inoo saar adigoo daawaday ha iska bixin, fadlan like saar haddii aad muuqaalka daawatay. mahadsanid. maanta waxaan kuu iftiimi doonaa xili walbay kuu tahay laba nooc ciyaarta dhexdeeda ka dhex dhici doonto sidaad u saadaali lahayd. sidoo kaleeto dadka waxaan aan sharaxayo yaqaana ama hore u bartay, fadlan wixii aadan aqoon commenti igu soo qor. tani waxaan barayaa dadka aan aqoon. marka aad abka sidatan usoo dhex gasho qaybta ciyaaraha soo galaya aad doorato kulankan Cameroon tusaale oo kaleeto, kulankan ayaan tusaale ahaan usoo qaadan doonaa. waxaan rabaa kulankan Cameroon badinaysa haddii aan dhaho lacag badan ma saarno, laakiin wadanka kale uu baxayo $56 saaran. haddii aan $1 saarto $56 ayaan ka faa'iidi doonaa. marka anigoo aan isku xijeenin badis, waxaan rabaa inaan ka dhex faa'iidaysto ciyaarta dhexdeeda wixii ka dhex dhici lahay inaan saadaaliyo. ma aha waxyaabo saas u adag, waxaa ugu yar aad saadaali karto inay fooro bixayso. tusaale waxaad dhahaysaa 1 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo fooro gacan ayaa bixayso, waa wax mar walba dhaco. tan heather goal micnaheedu waxay u taagan tahay waa madax ayaa la dhali doonaa kulankan. tusaale koornakiigaa lasoo qaaday, ciyaaryahan ayaa madax ku taabtay, goolkiyaa dhashay. lacagtan isla markiiba waa heli doontaa. qaybta kasoo horjeedana waa negative oo micnaheedu tahay madax lama dhali doono, iyaduna lacagtaas kala ku xusan. dhammaan waxyaabaha halkan ku xusan ama aan kor u wado waa ficilo mar walba ay joogto tahay inay garoonkaas ka dhex dhacan. ficiladaas oo kala ah tan aan hadda dul taaganahay last goal time, oo micnaheedu ay tahay goolka ugu dambeeyay ee kulankan goormaa la dhali doonaa. waxaa la dhali doonaa 1 daqiiqo ilaa 79 daqiiqo. gool markuu dhasho wixii ka dambeeyo ama 80 daqiiqo ilaa 90 daqiiqo wax gool lama dhalinayo. qaybtan kale tan ka hooseysa 80 ilaa 90 ay ku qoran tahay, waa 10kaas daqiiqo ayaa la dhali doonaa goolka ugu dambeeyay ee ciyaarta. qaybta kasoo horjeedana no goal ay ku qoran tahayna wax gool ah lama dhalinayo ay u taagan tahay. dhammaan waxaa halkan ku qoran waa ficilo ka dhex dhici doona garoonka dhexdiisa. haddaba tii aadan aqoon ama aad fahmi weyso qaybta hoose ee commenti igu soo qor gal OneXBet. tii aad fahmi weysana qaybtan isla muuqaalkan commentigiisa igu soo qor. sidoo kale OneXBet qaybta security-ga 2-factor-kan ha iskaga xirin akoonkaaga OneXBet. haddii koodka 2-factor-ka halka uu kusoo dhacayo mobilkaas uu kaa lumo ama 2-factor-kaas uu kaa delete gareysmo, dhibaato weyn ayaad kala kulmi doontaa akoonkaaga haddii ay lacag badan kugu jirtay. waxay noqon doontaa inaad passport ama ID OneXBet la wadaagto, taasoo shaqo dheer ah. hadda ha iskaga xirin 2-factor-kaas, fadlan iska ilaali. sidoo kale OneXBet haddaysan ku siinin lacagta gunada ah, fadlan akoon cusub sameyso, isticmaal promo code-ka mira oo far capital ah. lacagta ugu horeyso aad dhigato akoonkaaga OneXBet waxay ku sii doontaa 3 jibaar bonus akoon iyo 1x games ah oo ku dheeli kartid, hadhowna aad la soo bixi kartid. dad badan waxay ku muransan yihiin lacagtan ma lala bixi karo. bonus akoonka lacagtaada ma kula bixi kartid, laakiin waxaa muhiim ah inaad kusoo wareejiso main akoonkaaga, kadib ayaa la bixi kartaa. taasna shuruudo ayaa ka horeyso ku dheelista iyo la bixistaba. shuruudahaas muuqaal gooni ayaan ka sameyn doonaa.